seminaarkan loo qabtay macallimiinta madaarista quraanka kariimka ee dalka Kenya oo hal maalin socday ayaa waxa soo qaban qaabiyay madalada madaarista quraanka kariimka ee dalka Kenya waxaana ka soo qayb galay culimaaddin macallimiin iyo aqoon-yahano seminaarkan oo ka dhacay masaajidka Taqwa ee xaafadda Islaam magaalada Nairobi ayaa waxa uu ahaa mid lagu dhiirigelinayay macallimiinta siday kor ugu qaadi lahaayeen tayada waxbarashada ubadka waxaana culimadii halkaas ka hadashay la dardarmeen macallimiintaasi qaabkii dadka wax loo baran qaabkii darsiga dadka loo fahansiin lahaa ama ardayda wax loo akhrinayo loo fahansiin lahaa dariiqadaas ama usluubkaasi asaaliibtaasi qaababkaasi macnaheeda hadaan tacriifino waa khatawaadka ama tallaabooyinka uu qaadayo macallinku si uu fahansiiyo ardaygiisa wuxuu rabo inuu baro macallin baa dugsi furay meeshaasuu iclaan ku dhajiyey xoogaha inuu dhaqaalo ka helo unbay dantiisa tahay oo xoogaha maarata wax nadaamsado meesha nolol xoogaa iskaga hagaagsadan ayay dantiisa noqotay waxaa waay fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi may macallim kale ayaa wuxuu u qastiyey asiga oo adduunyadii waa imaanay laakiin ilaahay diintiisa inaad dadka bara maadaama ilaahay ku manaystay oo ugu nicmeeyay inaas kitaabka ilaahay barto Sheekh Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadan Jiiro kamid ah madaxda madalada madaarista quraanka kariimka ee dalka Kenya iyo gudoomiyaha madalada madaarista Sheekh Ismaan Maxamed ayaa iyaguna ka hadlay sababta ay seminaarkan u qabteen waxaana ugu dambeyntii shahaadooyin la gudoonsiiyay macallimiinta seminaarkaas uu soo dhamaaday mawduuca aan maanta isugu nimi wuxuu ahaa dowro loo qabtay macallimiinta wadanka Nairobi oo dhan waa dowra muallim almithali macallinka saxda ah seminaarkiisii weeye macallinka saxda ah seminaarkiisii sidaa daraadeed dugsiyadii oo dhan maanta waa la fasaxay macallimiintana halkaa la isugu keenay si ay aqoontooda u ziyaadsadaan deedna waxay barteen ay ardaydii iyo ula laabtaan macallinka dowrka uu ummadan u hayo ilaahay unbaa garanaya dadka taqyiirka sameeyey oo ummadan Soomaaliyeed badbaadshay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku badbaadshay waa macallimul qur'aan weey tababarkaas insha Allah ta'ala uu targalna macallimiinta inay aqoon koris u noqoto waxbarashada kor ugu qaadaan tacaamulka haday noqoto ciyaalka ama tacaamulkii ummadii haday noqoto ama waxbarashada madrasada dhamaanba saddex biloodna hal mar insha Allah ta'ala ay noo noqon doontaa niyada ku hayta saytu macallimiinta Cabdirashiid Absiye oo Cable TV Nairobi